وكدالي راديسكاغي وي 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 قلبي كراعة ليس ويا يوغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داوديال دمانتين بميل كستاد جوجتان halkan waa telefishinka caalamiga ee Sam News TV studiyihiisa magaalada Hargeysa oo barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee kaftanka Sam News TV oo si toos ah idinkaga imaanayo barnaamijka waxa idin la socodsiinaysaa isla markaana halkan idinku diyaara anigoo sagal guraa barnaamijkan waa barnaamij toddobaadlaha isla markaana aynu toddobaadkiiba hal mar hawada isku aragno barnaamijka oo soo gala habeenka ay isniintu soo galayso isla markaana ay xaddu sii baxayso 10 iyo barka caweysnimo maxaanu ugu talagalnay barnaamijkan maxaanu isugu hawleynaa maxaanu halkan u taaganahay maxay barbaarta Sam News TV idinku hawlan yihiin waxay idinku hawlan yihiin inaanu la qaybsano bulshada Soomaalida shacabka Soomaalida dadkaygaanu jecelnahay indhihiinu waxay jecel yihiin inaanu tusno annagoo toddobaadkiiba su'aal soo weydiina bulshada ku dhaqan Hargeysa isla markaana mikrofoonka la dhex tagna toddobaadkan waxay ahayd su'aashu hadii $100,000 lagu siin lahaa seebad oran lahayd kulleed lacagta nacib ma jirto dadku lacagta way jecel yihiin waliba sagal ahaan lacagta si gaar ah baan si jecelahayo hadii aniga saacada la dhiibi lahaa waxyaabo badan aan ogahay baan ku qaban lahaa waa tahay hadii aan hore halka uga sii socdo $100,000 hadii lagu siin lahaa seebad oran lahayd daawadayaasha reer Hargeysa ayaa si toos ah uga jawaabaya isla markaana mikrofoonka ayaan la dhex tagnay bal sagashan halkan bay joogtaa sagashii labaad eeg waanigiyo laakiin sagashii labaad oo shacabkii reer Hargeysa la joogta si wanaagsan noola daawada horaan idinku oodhe waa hagaag daawadayaal hore ayaan idinku oodhi waxaynu tegaynaa bartamaha weyn ee magaalada Hargeysa annagoo isla markaasna idinka soo diyaarinayna barnaamijka xiisaha lahaa ee kaftanka Sam News TV stuudiyihii ayaynu ka nimi isla markaasna waxaynu ku soo dhaadhacnay suuqii weynaa ee magaalada Hargeysa annagoo su'aashaan idinku talagalnay toddobaadkana idin weydiin doona dadweynaha isla markaas ku nool magaalada Hargeysa waxaanu taaganahay bartamaha magaalada Hargeysa ee bal aanu si toos ah dhalinyarada iyo bulshada hareerteeda taagan ee u diyaarka inay ka jawaabaan su'aashan u soo diyaar garoonay aanu si toos ah mikrofoonka ugu soo dhaweyno ee si wacan noola daawada hadii imika saacada $100,000 lagu dhiibi lahaa saad oran waxaan lahaa wada marka hore naftayda marka hore si aniga degan oo habiya ayaan naag guusin lahaa yara horeysin lahaa ma fahanti deedana markaas guriga ay baabuurkii xisaabtana aan soo dar lahaa magaranaysa imkaan oo siciido sidka inoo ka yimi saacadan meel kaas fog ka yimi dhakhtarkii waalida ku caraabsan baan ku jira dhakhtarka waalida ku jira oo gudoomiyaha dhakhtarka waalidana gudoomiyaha meesha dhakhtarka waalida anaga ku jira hadii kowde marka jacaylaan bay ina haysa xaga dhaqaalahan aad ugu liidana marka laakiin xisaabtu isku dheelitir weeyaano ilaahay uu soo dhigo u sakhray weeyandi waya waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Sam News TV ka baxa hadii isla saacada $100,000 lagu dhiibi lahaa saad oran lahayd barnaamijkana waxaad ku bilaabaysaa magacaaga anigoo magacayga ku bilaabaya barnaamijka Axmed Shaafi Baasha Axmed hadii saacada $100,000 la dhiibi lahaa wadanka ka bixi lahaa baan joogay xagal qaban lahayd wadamada caalamka ilaa aqoonsiga lacagta taalo ayaa tagilaa halkeebad jeceshay marka wadankeebad ugu jeceshay inaad ku noolaato wadankan ugu jecel waxa weeyaan Mareykan ha inaad marka saacada dil lagu dhiibi lahaa ha ma joogeen ba horan fiisa ka goosala marka hore magacaygu waa Xamse Ibrahim Aadan waxaan sameyn lahaa marka hore dan yartan ku caawin lahaa dadka masaakiinta ayaan ku caawin lahaa ugu horeyn marka saasaan ugu yeelaha raygayga marka ma lacagtii oo dhaba masaakiin baad siin lahayd dadka runtii weeye wallahi sida danta magacaygu waa Khadar Axmed Cigaal Sootar waxaan u jeclaan lahaa in aan Hargeysa maanta meel kasta ciriiritaan wax ku qabto aanu banay wadooyinka oo marka adiga deela Hargeysa waxba kaama gelin adiga shakhsiyadaada taanu dalkan u dhashay wax ku qaban lahaa waad mahadsantahay aad baad mahadsantahay waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Sam News TV waan ku faraxsanahay inaan kugu kulano bartamaha magaalada Hargeysa hadii $100,000 imika lagu dhiibi lahaa eeg waa imika halkan ay taagna hadaba lagu dhiibi lahaa saad oran lahayd waxaan oran lahaa horta $100,000 waxna tacab lagu soo saaraa waxna waa wax hadii lagu siiyo aniga imika hadaa $100,000 la siiyo
horta waa tahriibka imanka oo kale laga yaabo dhalinyaro badan way ku hamiyeen inay tahriibto lacag soo saarto dalkana hadhowna dhibaato la kulma waxaan jecelahay inaan ku shaqaysan lahaa wixii kalena aan ku caawin lahaa dhakhtarka weyn dhakhtarka dhibirka sidii wixii kale u baahan in lacagtaas oo kale marka waxaan jecelahay dhalinyarada halkan taagan inaan ku wacyigeliyo dalka tiifiyadan waad arkaysaan aad bay horta u fiican yihiin tiifiyadan oo wacyigelin sameeyaan marka waxa qurux badan nin fadhiya waxa la yidhi nin fadhiya dee in iska fariista maaha waa inuu shaqaystaa dalku aad u qurux badan yahay Hargeysa maanta markaad eegto maasha Allah marka $1,000 imika lagu dhiibay aduu saa oran imanka anigu wax business baan gelin lahaa talabaad waxaan ku caawin lahaa dhakhtarka dhibirka marka xigtana masaajidada ayaan tabaruc ugu sameyn lahaa waan ku faraxsanahay inaan kula kulannay waana kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka kaftanka Sam News TV ka baxa isla saacadan hadii lagu dhiibi lahaa $100,000 saad oran lahayd magacaagana ku bilowdo waan jeclaan lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waxa la Maxamed Cabdi Aadan Dhoole yare in hadii la dhiibi lahaa $100,000 in kulleeto marka hore in waxaan ku qabsan lahaa hawlahayga intay gaarka talabaad in waxaan kala bixi lahaa wixii sadaqada ay ku waajibta marka lacagta ku waajibta ay ka bixin lahaa in sida masaakiinta kale ba masaajido ka danta guud kala galin lahaa waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Sam News TV ka baxa waana ku faraxsanahay inaan kugula kulanno bartamaha magaalada Hargeysa haddii $100,000 imika lagu dhiibi lahaa eeg hadda lagu dhiibay saad oran lahayd $100,000 dadka masaakiinta baan qaybin lahaa imika hadda hadii la dhiibo masaakiinta iyo masaajidada ayaan qaybin lahaa wixii kalena waxa abaartu waxaan ku xoolaha ka laysay ayaan ku caawin lahaa adigu lacagta waxba kama qaadateen kama qaateen anigu waa sheegay runta wixii ilaahay ugu sheegay waa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Sam News TV ka baxa in anagoo ku faraxsan inaan kugula kulanno bartamaha magaalada Hargeysa $100,000 hadii imika lagu dhiibi lahaa hadaba lagu dhiibay saad oran lahayd magacaagana inaad ku bilowdo waan jeclaan lahaa Ahmed Cabdilaahi Cismaan waxaan sameyn lahaa mashaariic waaweyn aan ku sameyn lahaa sida dhul beereed oo kale biyo xireen oo kale inta abaaro ka baxayna waxna waan dhiibay in la soo hadlaa waxoogaya marka inta la soo hadhay xagga saad oran lahayd ma inta mustaqbalka ku daydeen lahaa bees mustaqbalka marka maxay fahmaysaa sheekadii jacaylka ahayd waa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Sam News TV ka baxa $100,000 hadii imika lagu dhiibi lahaa hadda eeg waa hadda waqti xaadirkan in taaganahay saad oran lahayd bal saad oran lahayd bulshada u sharax waxaanu jeclaan lahayn waliba inaad magacaagana ku bilowdo horta magacaygu waxa weeyaan Gulid Cabdiraxmaan Maxamed horta $100,000 hadda la dhiibi lahaa marshuucad badan baan ugu sameeyay la shirkado badan iyo kumbali baan noqon lahaa ma garanaysid dadkana waxba ku qaban waxa qaban lahaa mashaariic waaweyn ma sameyn lahaa wadooyinka dad xaalan ugu yeeri lahaa wadooyinka Soomaaliland hadda $100,000 ku bilaawi lahaa horta wadooyinka Soomaaliland wada xashiishka buuxiyeen ee dawladda wax ka qaban weydaan anigu wax ka qaban lahaa hadii $100,000 imika lagu dhiibi lahaa saad oran lahayd maxaad bal waxaad ku qaban lahayd adigoo magacaaga ku bilaabaya kamaradan inaad eegtan ka hadsan bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacayga ku bilaabaya eegmaaye waxaan $100,000 hadii la dhiibo ku qaban lahaa dalka Soomaaliland baa wuxuu ku qaban lahaa beeraan sameyn lahaa marshuucyo wixii ay gaadhaan ka sameyn lahaa horumar Soomaaliland iyo inamada camal kala ee jaamacadda ka soo bixi camalka waxay ku qabsadaan ayaan sameyn lahaa oo muuqda oo Soomaaliland ka tirsan baan sameyn lahaa naftaada laakiin waxba uga maad qaban naftaada waxba uga maad qabteen marshuuca dadweynaha oo ay ka shaqaysanayaan ka shaqo gelinayaan ma ku sameyn lahaa adigoo magacaaga ku bilaabaya hadii $100,000 isla waqti xaadirkan lagu dhiibi lahaa seebad oran lahayd bismillaah anigoo Cabdi Nuur Cabdi waxaan ka imi oo dadka soo galeetida iminka magaalada Hargeysa waxa aan oran lahaa $100,000 hadii iminka la dhiibo dawaan ku shaqaysan lahaa mar hadii aniga la siiyo aniga ayaa ku shaqaysan lahaa hadii aniga la siiyo hadii $100,000 waqti xaadirkan lagu dhiibi lahaa sideebad oran lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim horta hadii $100,000 imika la dhiibo waqti xaadirkan waan kala qaybin lahaa 500 waxaan nafteedaan u qaadan lahaa 500 soo hadhay hablaha reer Soomaaliland ayaan xijaab oran lahaa sistan siin lahaa
hablaha reer Soomaaliland waa xujaabayin xujaabadu way haystaan laakiin basaad adigu oran lahayd la xujaab hablii ma qaban waa xujaabayin idan waxa jira hablo badan oo dalkeena jooga oo maxaan ku dhahdaa imika ka bedelmay dhaqankii oo dhaqamo kala haysto fasawirada alaabaha la qabsaday kadibna oo maxaan ku dhahay jirkoodii dayacay jirkooda dumarka cawradooda waa in la yaqaan waa wajiga labada kaf kadibna iyadana dhamaanteed bay wada muujisay waxaan la isku hagaajiya idinku isku habeeya hablahan ku sabaqayn lahaa waan ku faraxsanahay inaan kula kulanno marka hore waan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka kaftanka Sam News TV haddii $100 imika lagu dhiibi lahaa sad oran lahayd assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ana xamse cabdullaahi axmed haddii $100 la dhiibo masaajidii malcamad ma ka dhislaano bas maxaad adigu laakiin qabsan lahayd masaajidkii malcamada waa dantii guud weyn laakiin shakhsiyan adiga qaadigan kugu guursan lahayd waan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka kaftanka Sam News TV ka baxa waana ku faraxsanahay inaan kula kulanno adigoo magacaa ku bilaabaya marka hore haddii $100 imika lagu dhiibi lahaa seebad oran lahayd assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh horta magacaygu waa Sadiq Maxamed Cabdi horta adaaniga $100 la dhiibo saddex waan u qaybin lahaa saddexda qaybood qayb nafteedan ku dabari lah iyo axwaashadeeda waxaan u baahnay labada qaybood soo helna qaybna diintan ayaan gelinaa qaybna danaha caamka ee dalku leeyahay saddexda qaybood aan u qaybin lahaa seebad oran saad u gelin lahayd macnaha danaha imka saddexda qaybood qayb danteedan ayaan siin lahaa labada qaybood soo helna qayb wadooyinka masaajidada waxaasaan labada qaybood kala soo helna siin lahaa ku soo dhawo barnaamijka kaftanka Sam News TV haddii $100 imika lagu dhiibi lahaa seebad oran lahayd ta ku dhawa waan maasan tahay anuurta $100 ba aan ku guursan lahaa kadib guursan lahaa $100 guursan lahaa $100 waa idade gurlaan bay u dhacday wax doonaan habeenkaas laba adu waxa guursan lahaa laba gabdhood oo caadiba islaamka marka adu $100 wax ku guursan lahaa waan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka kaftanka Sam News TV ka baxa haddii $100 imika lagu dhiibo seebad oran lahayd magacaa ku bilow aniga magacayga ku halaya Mustafa Axmed Maxamed haddii la dhiibo imikadan يعني waxaan ku samaysan lahaa maxaa waxaan ku samaysan lahaa meherada ku samaysan lahaa waxaan ku samaysan lahaa maxaa bakhaaro oo ku furla barna waxaan isleeyahay nafteeda geli ya nafteeda geliyo guur iyo waxa ma garaysa iyo shaqo ayaan ku samaysan lahaa ku shaqaysan lahaa الله له wad arkayseen indhihiina ayaa idin macallin aha si wanaagsanna waliba inaad u daawateen oo hurdadii ka soo kacdeeno dalkuwiisii seexanaya ay dib soo taageen baan rajaynaa qof waliba xul ayuu leeyahay waxbuu jecel yahay barnaamijyada markuu qabto wuxuu jecel yahay waxyaabo gaar ah ayaa uga soo dhexbaxa aniga sagalahaan mikrofoonkii aanu la dhex tagnay dadweynaha reer Hargeysa waxyaabo gaar ah ama dad xul ah ayaan kala soo baxay si aad si gaara indhihiinu u qabtaan bal haddaba aynu dadkan eegno waxaan jecelahay inaad si toos ah ila taawataan 4 qof oo aan ka soo xushay dadweynaha reer Hargeysa ee mikrofoonkan u dhaxgeynay haye si wanaagsan oo la daawada haddii imika saacada $100 lagu dhiibi lahaa saad oran waxaan lahaa wada marka hore naftayda marka hore aniga degan oo habiya ayaan naag ku guursan lahaa iyadoo horeysin lahaa ma fahanti deedana markaas guriga ay baabuurkii xisaabtana aan soo dar lahaa magaranaysa imkaan siciido siiska inoo ka yimi saacadan meel kaas fog ka yimi dhakhtarkii waalidana ku caraabsan baan ku jira dhakhtarka waalidana ku jira oo gudoomiyaha dhakhtarka waalidana gudoomiyaha meesha dhakhtarka waalidana anaga ku jira kowde marka jacaylaan bay ina haysa xaga dhaqaalahan aad ugu liidana marka laakiin xisaabtu isku dheelitir weeyaano ilaahay uu soo dhigo u sakhray weeyaan di ku soo dhawo barnaamijka kaftanka Sam News TV haddii $100 imika lagu dhiibi lahaa seebad oran ta ku dhawa waan maasan tahay anuurta $100 ba aan ku guursan lahaa kadib guursan lahaa $100 guursan lahaa $100 waa idade gurlaan bay u dhacday wax doonaan habeenkaas laba adu waxa guursan lahaa laba gabdhood oo caadiba islaamka marka adu $100 wax ku guursan lahaa waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Sam News TV ka baxa haddii isla saacada $100 lagu dhiibi lahaa saad oran lahayd barnaamijkana waxaad ku bilaabaysaa magacaaga anigoo magacayga ku bilaabaya barnaamijka Axmed Shaafi Baasha Axmed haddii saacada $100 la dhiibi lahaa wadanka ma ka bixi lahaa ma baan joogeen
xagga qaban lahayd wadamada caalamka ilaa aqoonsiga lacagta taalo ayaa tagi lahaa halkee baad jeceshay marka wadankee baad ugu jeceshay inaad ku noolaato anu wadankan ugu jecel waxa weeyaan Mareykan ha inaad markaa saacada hadii la ugu dhiibi lahaa waad ha maan joogeen ba horan fiisa ka goosan la hadii $100 waqti xaadirkan lagu dhiibi lahaa sidee baad oran lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim horta hadii $100 imika la dhiibo waqti xaadirkan waan kala qaybin lahaa 500 waxaan naftaydan u qaadan lahaa 500 soo hadhay hablaha reer Somaliland ayaan xijaab oran lahaa sistan siin lahaa hablaha reer Somaliland waa xijaabayn xijaabadu way haystaan laakiin basaad adigu oran lahayd la xijaab hablii ma qawan waa xijaabayn idan waxa jira hablo badan oo dalkeena jooga oo maxaan ku dhahdaa imika ka bedelmay dhaqankii oo dhaqamo kala haysto fasawirada alaabaha la qabsaday kadibna oo maxaan ku dhahay jirkoodii dayacay jirkooda dumarka cawradooda waa in la yaqaan waa wajiga labada kaf kadibna iyadana dhamaanteed bay wada muujisay waxaan lahaa isku hagaajiya idinku isku habeeya hablahan ku sabaqadeyn lahaa daawadayaal afarta qof ee aan idin tusay anigu walibana waxaan kala soo dhaxbaxayaa wax gaara laba qof oo gaara ayaan si toos ah kala soo dhaxbixi doonaa in hadii aan qofka u horeeyo idin sheego waa nin xanuunsanaya isla markaasna isku sheegay inuu yahay gudoomiyaha dhakhtarka waalida si toos ah ayuu ninkaasi arinkiisa u cadeeyay oo wuxuu yiri $100 hadii imika la dhiibi lahaa de guur baan u baahanahay guur la'aan baa dhacday xaas baan jeclahay inaan guursado anigoo degan ayaan marka hore gabadh ku guursan lahaa buu yiri marka labaadna de waa fakaagsigii iyo nolosha inteedii kale ayuunba ku qaban lahaa marka ninka xanuunsanaya isla markaana isku sheegay inuu yahay gudoomiyaha dhakhtarka waalida waxaanu leenahay marka hore ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo annaga shaqadayada ayay tahay markaanu banaanka u baxno isla markaasna aanu dadka wareysiga ka soo qaadanayno inaanaan kala dooran bulshada ku dhaqan Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waayo qof kaste wad u baahan tahay qof kastana wuu ku baahan yahay Soomaali baynu nahay dad isjecel baynu nahay waynu isu baahanahay kaan halka kaga yimaado waxaan kala soo qaadanayaa inaan dhalinyaro ah wuxuu yiri hadii $100 aan gacanta ku dhigi lahaa maxaa bay dhigaya meelaha Soomaalidu degaan wadamada caalamkan ka tagi lahaa halkan jecelahay ayaan waliba tagi lahaa wadankan anigu jecel in kastaan noo sheegin ayaan anigu tagi lahaa kuna noolaan lahaa war anigu $100 hadii la saacada la dhiibi lahaa sagalahaan wallahi inaan Soomaaliland meel looga baxeen waa tahay wahagaag daawadayaashada qadarinta qiimaha wax walba wad naga mudantiin runtii waxaan waliba si gaar ah ugu mahad celinayaa daawadayaasha barnaamijkan ku xiran ee kala socda baraha bulshada iyo waliba telefishinka caalamiga ee SMNews TV waxaan idin leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin markasta waynu isu baahanahay waanaanu jecelahay sid noo garab taagantiin mar walba noo garab taagnaataan waanu jeclay inaan idin la sii joogno halkan caawo dhan ka soo hadalno barnaamijka sii wadno sii daadihino laakiin waqtiga ayaa nagu yar saacada ayaa noo saamaxayn waxaan idin leenahay intaan barnaamij lamida aynu ku kulmi doono oo aynu mar labaad hawada isku arki doono waa aniga iyo Yaxye Cabdirashiid Maxamed oo inoo jooga xagga kamarada iyo waliba farsamada quruxda badan aad arkaysaan ee barnaamijka iyo anigoo Sagal Guura oo si toos ah barnaamijkan idin la socodsiinaysay waxaan idin leenahay anagoo ah barbaartii SMNews TV oo isku duuban sida iyo nabadgelyo wakudalay raadiskaagi way qalbigii ku raaca raysan wayayawga iga darogrogashada wakudalay raadiskaagi way qalbigii ku raaca raysan wayayawga iga darogrogashada